runtii magaalada Muqdisho waxaa laga yaabaa dadku inay ka warqabin waxaa soo gaartay bukaan cudurkaas waa soo gaaray dad badan ayaa u ildaran qaarna waa u dhinteen anigu aan garanayo tani markii si rasmi ah loo shaaciyay inuu cudurka safmarka ee COVID-19 ama coronavirus laga helay Soomaaliya bartamihii bishii Maars ee la soo dhaafay waxa bilowday dadaalo gobolka Banaadir oo gaashaamanayo cudurkaas halista badan si uu badbaadiyo shacab ku nool magaalada Muqdisho oo mas'uul ka yahay si loo gaashaanto cudurkan halista badan maamul gobolka Banaadir waxa uu daahfuray ololaha wacyigelinta ka hortagga cudurka COVID-19 waxa la diyaariyay geed ay ku rakaban yihiin codbaahiyaal kuwaas oo loo qeybiyay degmooyinka gobolka Banaadir si ay uga qayb qaataan wacyigelinta ka hortagga fayraska dhibaatada badan ku haya caalamka oo dhan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish ayaa magacaabay guddi heer gobol oo ka hortaga cudurka COVID-19 kadibna waxa la soo saaray awaamiir dadka lagu farayo inay u dhagangulaadaan talooyin ka soo baxaya xeeladayaasha caafimaadka Soomaaliya sida in lagu dadaalo farxalka kala fogaanshaha joojinta ka qaybgalka xafladaha aroosyada iyo kulamada dadweynaha inta kadib waxa bilowday in la tago degmooyinka gobolka Banaadir lana wacyigeliyo shacab ku nool magaalada Muqdisho iyadoo ay garab socoto qaybinta agabyada looga hortago cudurkan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish ayaa sharaxay waxyaabaha laga doonayo shacab ku nool magaalada uu maayirka ka yahay inta ayaan faraha ka bixin waxa la rabaa in aan la isu dhawaan in aan guryaha laga soo bixin inta karaanka ah in afka la duubto sidaan oo kale in si joogta gacmaha loo dhuqo dhammaan talooyinkaas waa kuwa mar walba lagu celcelinayo waxaa la idinka rabaa markaa talooyinkaas inaad qaadataan si loo gaaro bulsho caafimaad qabta duqa Muqdisho waxa soo kala darmay gudiyada degmooyinka gobolka Banaadir u qaabilsan wacyigelinta waxaan filayaa dadka meesha fadhiya inay yihiin degmada dadkii u qaabilsanaa wacyigelinta sidaas oo ma uma baahnidin marka inaan anagu wax badan oo wacyigelin idin sheegno waayo adinkaaba wacyigelinaya dadka marka intaan aan idin sheegayno wasiirku idin sheeg baa umada la gaarsiinaya si dadaal loo sameeyo haddii rabbi idmo ilaahan rajaynaynaa inuu dadaalkiisaas uu nagu badbaadiyo cudur halis ah jira waa huba dad badan oo adinka aad taqaaniin oo tan iyo marka cudurkan la sheegay dhintay inay jiraan waa huba marka kuwa kale inay bukaana suuragala in dadkeenu iska baaboo oo wax oo haddii dadka la wacyigeliyo ay suuragal tahay in laga badbaado oo isaga baaboo xoogaa annaga waana dhibtay waxaan go'aansanay marka ka dawlad ahaan inaan dadka gaarsiino wacyigelinta annagoo u marayna laga soo bilaabo ra'iisul wasaaraha wasaaradaha ilaa degmooyinka iyo waaxyahooda haweenka gobolka Banaadir oo lafdhabarka bulshada ay horkacayso maama Jawahir Maxamuud Barqab ayaa waxay ku guuleysteen sameynta qalab loogu hagaashanto cudurkan adduunyada dawada u leedahay sida gafuur xirka iyo gacmo gashiga waxaan ku fikirnay waxaan loo keenaa maaragtay adduunyadan ka sugaynaa gloves iyo mask la xiran lahaa laakiin waxaan ku fikirnay bal in aan materialka iyo awoodda haweenka aan ku fikirno maxaan ka bedeli karnaa maxaan qaban karnaa waxaan sameynay glovesyadaan aad u jeedaan oo hadda anaga noogu jira oo halka yaala iyo mask oo aan ugu talagalnay in maaragtay ay gabdhaha sanka xirtaan symbol waa koobi kan iyo awood aan leenahay anaga ilaahay uu na siiyay oo haweenku ay yihiin kuwa maskax furan aragti fog in aan anaga ka faa'iideysano awoodda haweenka Soomaaliyeed dadaalada looga hortagayo cudurka COVID-19 waxaan ka marnayn dhalinyarada gobolka Banaadir waxay wadaan dadaalo looga hortagayo cudurka safmarka ee COVID-19 iyagoo wacyigelin ka sameynaya degmooyinka gobolka Banaadir cudurka dhayal maaha walaal dhaqangali fariimaha iyo badqabka caafimaadka tirada uu soo ridanayay cudurka corona maalin walba waa ay ka sii badanaysaa intii ay ahayd taasi waxa ay cadeynaysaa in cudurku uu ku sii faafayo bulshada dhexdeeda sidaas darteed waxaa dhammaanteen noogala baahan yahay in aan taxadarno oo aan qaadanno awaamiirta lagu xakameynayo faafitaanka cudurka
maahan cudurka caadil baana keena fadlan ha ka xishoonin muwaadin inaad sheegto haddii uu ku haleelo cudurka mana qarsan ee iska baar ha kadsoomin muwaadin korona iyo hargabku ay kala duwan yihiin haddii uu adag yahay awoodda difaaca jirkaagu waxaa jira aabbaha hooyada awoowe iyo ayeeyo oo weliba la nool cudurro difaaca jirkooduna uu daciif yahay fadlan haddaad iska shakido isbaar oo ka badbaadi waalidka fadlan muwaadin ka qayb qaado badbaadinta bulshadaada oo u istaag ka hortagga cudurka coronavirus sidii looga joojin lahay bulshada Soomaaliyeed iyadoo ay socdaan dadaalada cudurka COVID-19 haddana Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya waxay safar uga jirtaa magaalooyinka dalka cudurkan uu ku faafayo sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir ayaa sameeyay xarun gaar ah oo dadweynaha ay ka soo wici karaan lambar gaaban oo ah 992 waxaa goobtaasi jooga howlwadana loo carbiyay inay dadka ka caawiyaan cudurkan si ay u siiyaan dadka talooyin anfacaya kastoo lambarka gobolka Banaadir waxaa jira lambar kale oo ay leedahay xukuumadda federaalka Soomaaliya kaas oo ah lambarka 449 oo si lamid ah kan maamul gobolka Banaadir u caawiya dadka uu soo rito ama isaga shakiya xanuunka ama siiya talooyin wax ku oola qaar ka mid ah gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir oo booqday xarumahaasi ayaa bogaadiyay sida howlwadanada halkaasi ka howlan ay wadaan hawshaasi waxayna kula daarmeen inay sii laabaan hawsha ay u hayaan shacab ku nool caasimadda Muqdisho aadan ugu mahadcelinaynaa mas'uuliyiinta ee xarunta call centerka 449 iyo dhammaan dhaqaatiirta iyo shaqaalaha carbiyeysan siday ugu shaqeynayaan dadka ku nool ee Soomaaliya oo dhan gaar ahaan dadka caasimadda mas'uuliyadda ay u hayaan iyo shaqooyinka siday u gudanayaan waxay noo sheegeen inay aad iyo aad xaaladaha wacyigelinta u gaartay dadka ku nool caasimadda ee si toos ah u soo wacayaan hadda xarunta xaaladda magaalada Muqdisho ee tahay mid aad u wanaagsan sida hore loo faahfaahiyay waxaan halkan ku nimid booqasho si aan u weerno hawsha socota iyo qaabka shaqadu socoto runtii waxaan halkan ku aragnay hawl aad iyo aad u baaxad weyn oo ay u hayaan dadka ummadda Soomaaliyeed oo ka mid yahay shacabka gobolka Banaadir waxaan uga mahad celinaynaa howlwadanada halkan jooga shaqada hufan ay hayaan waxay noo sheegeen warbixin markaan ka dhageysanay ka bacdi in maalmihii hore iyo hadda farqi jiro oo markii wacyigelintii iyo la falgeliyay la hirgeliyay aan dhaho ay soo kordheen kaysaskii iyo dadkii la soo xiriirayay xaruntan shacabka hadda inay diyaar u yihiin inay la soo xiriiraan halkan inay receive gareeyaan maalin la keeno 6,000 ku dhawaad oo call oo ay ka helayaan dhammaan dalka ha ugu badnaado gobolka Banaadir si kastaba gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish oo kamid ah guddiga heer qaran ee ka hortagga cudurka COVID-19 ayaa ka digay cudurkan halistiisa waxaana xusay oo hoosta ka xariiqay in muddo 10 maalmood gudahooda magaalada Muqdisho oo kaliya ku dhinteen 500 oo ruux kuwaas oo isugu jira dad qaba xanuunka iyo kuwa aan qabin nooma suura gelin dhammaan inta wax lagu aaso dhan inaan qof geyno balse kuwa waaweyn ilaa 5 meelood oo dadka lagu aaso oo waaweyn aan u dirnaa dad oo maalin walba ka soo warbixi 5taas goobood waxa kamid ah qabuuraha barakaad leeyra qabuuraha Alcadde ama Sheekh Ali Cabdulle qabuuraha Macalinoor qabuuraha degmada Kaxda iyo qabuuraha Jaziira sidaas aan gudbinaa tirada ugu badnayd oo aan gudbino maalin qura waxay ahayd 49 tiradii ugu yarayd ee aan gudbinona waxay ahayd 22 waa 19 ilaa 1 bisha May waxay cagacageynaysaa marka 500 ku dhawaad maadaama marka ay muuqato sida dadkeenu u dhamaanayo mas'uuliyaduna ay nasaaran tahay ayaan u istaagnay wax alla wixii karaankeena aan qaban karno inaan qaban tirtiro gacmaha ka badhmaydh tallaabo u jirso dadka kale hadduu ku taabanaa cida u tegini takooro naftaada baano tawxiidka alluunba tirtiri karaye talana ee baaga saaro qadarka rabna kama talabsanaye balse taxadir haytaaban meel qudha ha taaban